jaamacadda Alfa oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala Soomaaliland isla markaana qaybo kala duwan ku leh qaar kamid ah magaalooyinka Soomaaliland ayaa waxay maanta qayb cusub ka furatay magaalada Boorama waxaana furitaankii jaamacaddani ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorama kuwaasi oo isugu jira aqoonyahan dhalinyaro siyaasiyiin culimaawidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorama kuwaasi oo dhammaantood soo dhaweeyay furitaanka jaamacadda cusub ee Alfa ayaa waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Boorama Dr. Cabdishakuur Cabdilaahi Xuseen sababtii aan ku dooranay jaamacadda Alfa inaynu ka furno magaalada Boorama taas horta idin la wadaagayaa sidaad walaalayaal horta wada ogtihiin kulay barashuurada wada siin doonaa jaamacadda Alfa waxa lagu aasaasay wadanka Itoobiya magaalada Addis Ababa taariikhdu markay ahayd 1994 marka maanta magaalada Boorama marka la isku daro jaamacadaha ka jira waxay noqon doontaa jaamacaddii ugu da'da weyneed ee magaalada ka hawlgasha qodobka labaad Soomaaliland lafteeda jaamacaddu waxay timiday waqti hore 2009 inta wadanka ay jaamacaddu jirtay ee ay joogtay waxay soo saartay mas'uuliyiintii ugu badnaa ee xukuumadda hadii ay noqdaan iyo arrimaha bulshada ka shaqeynayay maanta ardayga adiga oo Boorama jooga hadii aad tahay undergraduate waxa ka wada hadii aad baranayso diblomada iyo degree-ga bachelorka labadaas waxaad isku shahaado noqon doontaan ardayga jooga Addis Ababa adiga iyo isagu isku shahaado qaadanaysaa walibana way noo isugu gelin maanta waan wadnaa shahaadooyinka ay jaamacadda Alfa bixiso ma aha kuwa sinaba loo koobiyeysan karo qodobka labaad ee bishaarada maanta waxa weeyaan ee aynu kaga duwanahay dhammaan jaamacadaha ku yaala Soomaaliland programka loo yaqaano masterta walaalayaal saab la socotaan anigu waxaan haynin ardayda aad ugu dhex jira waxaan ogahay intaasoo arday waxa jirtay anigoo aan macallin u ahaa oo intay baxeen oo wadanka ka baxeen kadibna master doontay halkan kadibna ku soo noqdo leeyahay shahaadada aad wadato lama aqoonsana maanta halkan waxa idinku keenay Boorama adoo magaaladaadii jooga oo wadankaagii wax ku baranaya xaafadii la jooga inay adiga jaamacaddii ku timaado oo adiga barta wax ka baranaya mastertii aad ku diyaariso wadanka Malaysia halka adiga qof walba jooga oo una safarkii ka bixi de Alfa waa jaamacad maanta dhowr iyo 20 sano shaqeysa marka laga reebo jaamacadaha xiriirka la leedahay ay faculty adduunyada ka jira oo wadankeena lagu barto ina bixin ma jirto caafimaadkii kaga soo bilow medicine-kii ilaa lab-kii ilaa soo hadii ay noqoto degree-gii kale ee business-kii dhammaan way wada bixinaysaa faculty-ga loo yaqaano IT-da waa jaamacadda kaliya ee maanta bixisa IT-da qaybta loo yaqaano cyber security-ga maanta waxay ku beegan tahay 26 Juun waa maalintii xornimada ay qaadatay dhulka Soomaaliyeed ugu horeeyay waa maalin qaaliya isla maanta waxay ku beegan tahay xafladda furitaanka ee jaamacadda Alfa waa maalmo farxadeed baa kulmay baan oran doonaa intaasi kadib iyaguna waxa xaggaasi ka hadlay Professor Xamsi oo dhinka kulliyadda Social Science ee isla jaamacaddaasi Axmed Maxamed Quule oo ah gudoomiyaha guddiga boardka ee jaamacaddaasi Maxamed Xasan Sheekh Muumin oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacaddaasi walaalayaal sidaad ogsoontihiin jaamacadda Alfa waxay xarumo ku leedahay gobolada dalka Soomaaliland qaybo fara badan oo kamid ah oo ku faraxsanahay maanta in faracii saddexaad oo ka baxsan magaalada caasimadda ah aan ka furayno magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal farxad gaar ah ay noo sameynaysaa waa inay nooga duwan tahay kambaska aanu ka furayno magaalada Boorama kambasyadii hore dhowr sababood daraadood magaalada Boorama waxay caan ku tahay aqoonta iyo tacliinta Boorama waa magaalo caan ku ah ilbaxnimada iyo xadaaradda Boorama waa magaalo caan ku ah nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Alfa oo jaamacad xiriir la leh ugu yaraan 6 jaamacadood oo adduunyada ku yaala jeedada ugu weyn ee leedahay waxa weeye inaynu dadka aqoon u kordhino innagoo qaranka u shaqeynayna guud ahaan waayo waxa loo shaqeeyaa waa shacbiga weyn taas waa inaynu fahamno oo aynu garanno inaynu daacad ka ahno waxaynu qabanayno dadkana halkii loogu doonayay la gaarsiiyo oo ah ardaygaasi inuu noqdo isagoo graduate halkii uu doonayay inuu gaaro taasina ay tahay maxay
tayadii laga rabay in la helo haddii alla yidhaaho ilaahay idmo waxaanu isku taxallujin doonaa inaanu dusha iyo hoostaba ka ilaalino sida ay hawsha u socoto lana soconno bit by bit oo wax walba aanu ogaano sida ay u soconayaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu muxuu ahaye inagu gargaaro waxaan filayaa jaamacaddani inay noqoto ta ugu orod badan insha allah ee ugu qurux badan ee ugu quality sarraysa inaan ku xidhno 5 sane soo socota haddii ilaahayna gaadhsiiyo inaan London iyo Ingiriis aan ku wada xidhno insha allah iyo Malaysia hadda taasi waa wada la sii marayo laakiin ujeedadeedu waxa weeyaan inaan London shahaadadu noqdaan haddii ilaahayna lecture-ka halkan lagu galo professorada ama hay looga soo baxaan TV ama hay yimaadaan inaan sidaa u develop garayna insha allah inaan orod ku wada dhaafno jaamacadaha kale intaasi kadib iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kala duwanaa odayaashii iyo culimadii ka soo qayb gashay kulankaasi waxaa la idinka baahan yahay inaad la timaadaan wax ka duwan wixii jaamacadaha hore barnaamijyo cusub oo waxtar leh oo aad tayeysaan oo ma garanaysaa dhalinyarta iyo dadka wax ka baranaya jaamacaddu ay kaga duwanaadaan inaad awoodda saartaan waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa jaamacadda alfa faraca ay ka furanayso magaalada boorama maadaama magaalada boorama ay noqotay xaruntii aqoonta isla markaana lagu sifeeyaba inay tahay iskuul weyn oo korka ka furan lagu sifeeyo waan soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay jaamacadda alfa faraceeda boorama waanu soo dhawaynaynaa madaxdeeda sare Hargeysa iyo ta cusub ee boorama qaybtan madaxda ka noqonaysaba soo dhawaadaan ilaahay jaamacadda soo dhawaynaynaa ilaahay baa mahadle waanu ku faraxsannahay in ay u faa'iideyso barbaarta reer awdal ay ka dhalinyarada wax ku dardaaraynaa inay ka faa'iideystaan ugu dambeyntiina maayirka degmada boorama iyo barasaabka gobolka awdal oo halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen haddii anigoo ah duqa degmada boorama aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo furitaankan jaamacadda waana ku soo dhawaynayaa insha allahu haddaanu nahay degmada boorama waxaanu u baahannahay research in lagu sameeyo waxyaabaha degmada wax badan ka taraya insha allah waxaana ka sugaynaa inay jaamacadda alfa noqoto jaamacaddii ugu horreysay ee golaha deegaanka ka caawisa research-yadaasi haddii ilaahayna insha allah waan soo dhawaynaynaa furitaanka jaamacadda waad mahadsantihiin inaad baraajkii keentaan gobolka awdal waan garab istaagaynaa sidaa daraaddeed waan u hambaleynaynaa inankaa dayartaa waxaa kaloo hambaleynaynaa jaamacadda ka oggolaatay inankaas inuu keeno jaamacadda gobolka waxaan u sheegaynaa dhalinta gobolka boorama jaamacadda alfa university in kuwaan dhasaalaju waad hambaleynaynaa congratulation kusoo dhawaada magaalada boorama haddaba bulshada aan kuu tilmaamay jaamacaddu waxay ka furan tahay bartamaha magaalada boorama gaar ahaan daarta dheer ee ku taalla xaafadda xalane